jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wow ugu horreyn waan idin salaamay salaan ka bacdi muuqaalkan waxaynu kaga bogan doonaa inta ballanqaad ee uu sameeyey maxamed cabdilaahi farmaajo ee aanu fulin hal ballanqaad oo ka mid ah sidaa daraaddeed gabagabada muuqaalkan waxaan rabaa inaad isweydiiso ma u qalmaa in la doorto mar labaad mise uma qalmo adiga oo aan ku taageeraynin qabiil ama dan aad adigu leedahay xaqiiqadu waxay tahay inta badan waxaynu samaynaa waxaynu dooranaa mas-uuliyiin hogaamiya dalka laakiin hoggaankaasi marka uu fashilmo waxaynu samaynaa shacabka ayaynu u tunnaa taasina waa waxyaabaha dib u dhigaya soomaali idilkeed shaksiga markaaynu aragno inuu fashilmay ama aanu fulin ballanqaadyada uu sameeyey waqtigii ololihiisa waxaa inagu waajiba inaynu booska keenno shaksi kale oo fulin kara ballanqaadyada uu sameeyo sidaa daraaddeed bal ila daawo muuqaalka ugu horreeya jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo anigu keliyaata waxaan soo qaadanayaa khudbaddii doorashada markii uu ahaa musharaxa soomaaliya iyo maanta oo ah muddo laga joogo 3 sannadood waynu eegi doonaa kaasoo keliyaata maaha kan kalena ila eeg waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa ila annaga ka mas-uula annagaa ilaalin weyne nabadgelyadii bal kan kalena ila eeg dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku rahdaa dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen hawshu way socotaaye kan kalena ila eeg waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo miyay kula tahay inuu fuliyey intaan soo sheegay jawaabtu waa maya bal kan kalena ila eeg haddana dib u heshiisiin aan samayno dad waana waxaan ku kala duwannahay male waxaa laga yaabaa siyaasiyiin inay na kala fogeynayaan laakiin dadka Soomaaliyeed col ma aha waxaan xoogga saaraynaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya intaasoo keliya tamaahe kan kalena ila daawo nabadda iyo nolosha aan sheegay dowlad wanaag iyo sarreynta sharciga hawshu ma yara kan kalena ku xigsi shabaab baad meeshii rabta weerarta shabaab baa meeshii rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dawladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen Allahu naxariisto dhimatay wow xaqiiqatan ma uusan sameeynin inta aynu soo sheegnay intaaba wuxuu ballan qaaday waxay ahayd waqtiyadii uu ku jiray ololaha inuu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya in ka badan 10 ballanqaad oo uu sameeyay muddo 30 daqiiqo gudaheeda hal ballanqaad oo kamid ah ma uusan fulin hawshu way noo socotaay balkana ku xigsi waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada Soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogto oo u qorina haduu Ilaahay yiraahdo wow indhahaga ku macallina farikamo qadne balila daawo weli waxaynu bedelaynaa in amnigeena cid kale ay nooga noqoto mas'uul muuqaalka ku xigana ila daawo waxaan bedelaynaa oo kale hadii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo haduu Ilaahay yiraahdo in dawladdu awoodeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd ilaa hadda sidoo aragtaa balkan ku xigana daawo arinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo
siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn kan ku xigana daawo bal diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn wow runta markaynu isku sheegno miyaanu ahayn maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha labaad ee ugu beenta badan adduunka marka laga yimaado Donald Trump been waa la sheegaa oo siyaasiyiintu been way sheegaan laakiin waxay sheegaan been run u eg intaa haddaynu kaga nimaadno ballanqaadyada uu sameeyey bal aynu u nimaadno xiriirka maamul goboleedyada halka ay marayaan runta aynu isku sheegno Puntland halkee bay maanta taagan tahay Jubbaland halkee bay maraysaa koonfur galbeed halkee bay tegeen shacabkeedu haddii aynu taa kaga nimaadno oo uma baahna maanta dee sharaxaad badan Jubbaland waxaa ka dhacaya Puntland xaalkeedu siduu ahaa koonfur galbeed siduu noqday bal aynu u nimaadno wadahadallada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya waxaan kaloo rabaa inaan dhammaystiro wadahadallada u dhexeeya walaalaheen Somaliland iyo dowladda dhexe codkiina aad siisaan inaan meeshaas ka bilaabo dadkaas walaalaheen inaan la fariisanno wax alla waxay tabanayaan si daacada oo ilaahay hortiisa inaan ugala xaajoonno cabdiraxmaan cabdishakuur bal waxa uu ka yidhi Somaliland iyo Soomaaliya xiriirkooda halka uu marayo aynu eegno clipkan yar aynu ku daawanno Soomaaliya wax loo qabtay male anu dadkii ugu horeeyay ka qeyliyaan ahaa aynu kaga nimaadno halkaas cabdiraxmaan cabdishakuur muuqaalkan ku xigana aynu eegno Mustafa Qodax oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka yidhi xiriirka u dhexeeya waqti xaadirkan xukuumadda uu hogaamiyo Farmaajo iyo Somaliland iyo halka ay marayaan waadiga arkay ma ko talaabooyin badan oo runtii khaldan oo reer Somaliland aan qaban baa xukuumadda Farmaajo ay samaysay iyo dowladda ka tirsanahay heer wuxuu gaaray uu yidhi waxaan la qabaa shacabka Somaliland waxa weeye dadkii reer Somaliland markaan imaka xitaa anagu ka soo jeednay inaan wanaagii Soomaalinimada iyo waxay midnimadu ku wanaagsanaan lahayd aanu isna uga sheekeeya dadkii waxay weydiinayaan oo meel laga maraajirin war ma nimanka aanu aragnay itaalkooda iyo nooca yihiin iyo xaaladooda aanu aragnay haddana alaanka sidii Mareykanka anaga cuna qabataynaha nasaaraya dadka reer Somaliland waxyaabo noocaas marka runtii kama jawaabi karaysid waxa la waxad kaga jawaabto waa runtooda ma laha waxay ku leeyihiin ninkaas hada anaga nagu dhisay haduu naga xoog weynaado bari markaas hadnoo jiidaya dadka qaar waxay yiraahdeen oxygen-ta la neefsada haday noo hayaan way naga joojin lahaayeen anigana shaki bay iga jiraba in oxygen-ta ka joojin lahaayeen kale oo aniga abadanisan dhaqanada markaan arkay imaka meesha yaaleen dadka runtii koonfurta ma wada sheegayo anigu siyaasiyiinta iyo ragga imaka waliba dalka hogaaminaya oo Farmaajo kookii baan ugu sheegaya waxa weey in haddii dowladda ama xukuumadda Farmaajo ay oxygen-ta u hayso shacabka reer Somaliland inay ka joojin lahaayeen taas oo ay macnaheedu tahay shakhsiga haddii oxygen-ta laga joojiyo inuu dhimanayo oo aynu u fasiran karno maanta haddii dowladda Farmaajo ay awood u lahaan lahayd inay gebi ahaanba burburiso shacabka ku nool Somaliland inaanay waxba u reeban lahayn balse halka ay dhigtay Itaaliyari aniga aragtidayda xukuumadihii ka horreeyay maxamed cabdilaahi farmaajo shacabka Somaliland iyo shacabka koonfureed way isku soo dhawaayeen xaqiiqatan wax nacayba oo sida uu weynay ma uusan jirin laakiin intii uu talada dalka qabtay maxamed cabdilaahi farmaajo xaaladdu waxay ka baxday faraha shakhsiyadan siyaasadda faraha la geli jirin ama aan ka hadli jirin baa istaagay oo ka hadlay dhaleeceeyey arkay in weerar cad lagu soo qaaday Somaliland oo aan waxba loo reebanin bal maxaad u malaynaysaa shakhsigii ka tirsanaa xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya marka uu aaminsan yahay in Somaliland lagu qaaday dagaal toos ah iyo mid dadban labadaba maxaad u malaynaysaa inuu aaminsan yahay midka ku nool Somaliland adigaan kaaga tegay taas aniga aragtidayda rajan ka lahaa markii ugu horeysay maxamed cabdilaahi farmaajo xaqiiqatan
laakiin rajo kastoo aan ka lahaaba god bay ku dhacday. taas macnaheedu ma aha inaynu aflagaadayno, mana aha inaynu cayno. xaqiiqadii waxa weeyaan adar dee mas-uuliyiintii horun baad la mid noqotay, balse muxuu dheer yahay? mas-uuliyiintii hore si yaroo degan bay wax u wadi jireen, laakiin isagu si cad oo aan gabasho lahayn oo dagaal cada ayuu soo qaaday. tusaale ahaan haddii aan soo qaato waxyaabaha sida cad ay dadku u xasuustaan, waxaa ka mid ah inuu yidhi DB World waxay ka shaqayn kartaa airportka Muqdisho iyo Puntland, laakiin kama shaqayn karto Berbera. sidoo kale waxaanu soo qaadan karnaa xoolihii Somaliland ee la joojiyey ee ku sigtay inay dhammaantood dhintaan inkastoo aan waxba loola hadhin. waxaa kaloo aynu soo qaadan karnaa booqashadii madaxweynaha Somaliland uu ku tegay waddan Africa ka mid ah waa Guinea, iyo sidii ay xiriirka ugu jireen, taasoo ahayd wax aada looga xumaado runtii. waayo waxay caddeeyeen iyagoo halkaa jooga maanta, yacni haddii ay awood lahaan lahaayeen dagaal toosa oo cad inay soo qaadi lahaayeen. su-aashaan adiga kugu dhaafaya ayaa waxay tahay, haddaba ma u qalmaa maxamed cabdilaahi farmaajo inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee Soomaaliya, iyadoo aynu ognahay xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto? mise yahay shaqsigii ka saari lahaa dhibaatada Soomaaliya ay maanta ku jirto? mise wuxuu noqon doonaa shaqsi gelin doona dhibaatada ay Soomaaliya maanta ku jirto mid kasii baaxad weyn? khayr baan idin rajaynayaa. adiga ayaan ku dhaafay jawaabta su-aasheeda. xaqiiqadu waxay tahay intaa ballanqaad ee uu sheegay ee uu weliba dhaartay, hal ballanqaad oo ka mid ah haddii uu fuliyey waad ii sheegi kartaa? xaqiiqatan ma jirto. waxa ugu muhiimsan ee dalku u baahan yahay maaha in siyaasadda dibadda la dhiso, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan siyaasadda gudaha in la dhiso, dadka in la isku soo dhaweeyo, in la isjeclaysiiyo, in laga abuuro. waayo marka aad hanato quluubta shacabkaaga waxaad ka adkaan kartaa cid kasta oo dibadda kaaga timid. balse adigu su-aal isweydiiyey, maalintii la doortay maxamed cabdilaahi farmaajo, xaqiiqatan been sheegi maayo, dad badan oo reer Somaliland aada ugu farxay. waa marka runta laga hadlayo, waayo waxay rajaynayeen inuu yahay shaqsi yacni ka furfuran siyaasiyiintii ka horreeyey, ama Somaliland ha la aqoonsado ama yaan la aqoonsanin, laakiin rajadoodu waxay ahayd xaaladda Somaliland inay dhinacun u dhacdo, la wada hadlo. laakiin wuxuu sameeyeyba waxay noqotay in lasii kala fogaado. xaqiiqatan beenna sheegi maayo, dee adigu waad og tahay. waayo waxaa dhacay ficillo aanay samayn jirin hogaamiyeyaashii ka horreeyey sida Cabdilaahi Yuusuf, xasan sheekh shariif, xasan sheekh maxamuud. ficillo aanay isku dayin inay ku dhaqaaqaan buu ku dhaqaaqay. in badan oo idin ka mid waxaad u haysataan geesinimo, laakiin ma aysan ahayn geesinimo keliyaata, waxay ahaayeen ficillo uu kusii kala fogeeyey shacabka Soomaaliyeed. maanta Puntland lagama ogola, koonfur galbeed xaalkeeda daa, Jubbaland haba soo hadal qaadin. yacni waa yahay maalintii la doortay shacabka Soomaaliyeed wuxuu haystay inta koonfur ku dhaqan taageeradooda 100%. balse maanta xaqiiqatan markaynu runta ka hadalno oo aanaynu been sheegaynin, 50% xataa ma haysto. inta taageertana waynu iska garanaynaa, hebel iyo hebel iyo hebel ma odhan karno. waxaa halkeeda aynu ognahay, ma doonayno inaynu sheegno, laakiin xaqiiqada waxay tahay 100% in ka badan 50 wuxuu lumiyey kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ay ku qabeen. waan idin salaamayaa, khayr baan idin rajaynayaa, guul iyo gobonimo. diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo, waa ceeb weyn. waxaan kaloo rabaa inaan dhammaystiro wada hadallada u dhexeeya walaalaheen Somaliland iyo dowladda dhexe. codkiina aad siisaan inaan meeshaas ka bilaabo, dadkaas walaalaheen inaan la fariisanno, wax alla waxay tabanayaan si daacada oo Ilaahay hortiisa inaan ugala xaajoonno. wataad la fahaygayo
adigoo lufankay cuntee haddaa liqayo ilaaway maxaa haanta lushaba adigaa lingaxkaaga dhigay